ilaahayga samada dhisay dhulkana goglay baan ku dhaartay kacbadana dhisay karaameey ayaan ku dhaartay inaydan xal ka gaadhayn 100 sano dambe hadaa daba ruuxleysaan sheekh umul oo aad u careysan ayaa wuxuu soo duway muxaadaro ku saabsan wadankeena Soomaaliya muxaadaradaas waa muxaadaro cajiib ah wax badan aad ka fahmi doontid ila daawo sheekha muxuu leeyahay ilaahayga samada dhisay dhulkana goglay baan ku dhaartay kacbadana dhisay karaameey ayaan ku dhaartay inaydan xal ka gaadhayn 100 sano dambe hadaa daba ruuxleysaan 200 sano dambe hadaa daba ruuxleysaan inaad sii jabtaan mooye wa rabbi samaa'i wal ardi inaydan xal ka gaadhayn dawladnimana gaadhayn dadnimana gaadhayn karaamana gaadhayn tilka sunnatullah غيب كما ورميو لكن كتابك الربي باسا وحقيحي سنة النبي محمد باسا وحقيحي تاريخ يسجل لي كذا بركي للرقا سداس بل دي بقول نقضى ومد كرامة وذي قبيالة دي قشن انتي وقيب سنتو كوح نقطو الدولة دي يرير وقيب سنتي ومدح نفعيين اي هقامين ايان تاريخ ذا حدابي كو حقيقي سي هرمر ايه وناك حقيقو حقيقو قادي waxaan jirin waa marka ku dhamaada odaygu ha ku xiroobo ka yarkii ha ku barbaaro ka dhimanay ha ku dhinto hooyadu ha ku ilmuhu yaani ha ku agoomowdo ilmuhu ha ku agoomobeen sida aan ku soconno tii rabbina waa dambaysaa tabaaraka wa taala aad ayaad u maqashay aan filayaa sheekha isagoo aad u qiraysan ayuu muxaadarada soo jeediyay wuxuuna ka hadlay runta Soomaali haba ka filan inay dawlad dhalato sidoo hadeertaan sheekh umul u dhaartay ayaan anigana u dhaaran karaa in aysan marnaba dawlad aysan ka dhalan doonin Soomaaliya maxaa yeelay waxaan la dhoobay oo hadeertaan 4 sano marka la dhameysto iyo maamul goboleedyada ayaa adduunka uu ku dhamaan doona marka adiga idaabanaya muxaadarada sheekha uu soo jeediyay sidaad u aragtaa waxaas leedahay sheekh umul wuxuu sheegay waa been Soomaaliya waa laga yaabaa horumar inay gaarto balse waxaad leeysaa waa saxsan yahay sheekh oo sidaas ay Soomaaliya ku ahaan doontaa daawade haddii jawaabtaadu sidaas ay tahay commentiga nagula wadaag barnaamijka dad ka heshay share like comment ka bixi soo meel fog gaaro anigana waxay ii tahay dhiirigelin mahadsanidin